waxaa jira dhowr gabdhood oon iskaranayno oo maxay tahay waxyaalo waqtigu noo saamixi waayo hadba markasta dee ma haleelisid inaad wax akhrisato ama dhageysatid marka hadba tii wax soo maqasho fiican oo dee cashar qofkii kale u kordhin kara waan isku soo waranaa taasoo noo fududeysa mararka qaarkood ninba maalintu dee cashar bixinayo amba cashar u dhigayo uu tusaale ku soo qaato marka gabadhaasi waxay ii sheegtay maalin meel ay lecture ka dhageysanaysay inuu wadaadkii hadlayay maalintaasi uu yiri salaadii markii laga baxay nin masaajidka ku tukada ayaa u yimid wadaadkii meesha joogay uu yimiday uu la sheekaystay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan su'aalo ku weydiiyo waxaad iga caawin karaysid igula tali inankiiba wadaadkii ku oranaya anigu waxaan ay buu oranayaa qof dee markasta shaqeeya aad baan u shaqeeyaa buu yiri lacagtay soo gashana waa lacag fiican balse buu yiri bisha dirqi baan ku gaadhaa bisha dhan yani 30 maalmood amba 30 maalmood bishu ka kooban yahay dirqi bay lacagtaasi ugu gaarsiisaa laakiin markaan erago waxa ii soo dhaca lacag fiican oo dee iska badan weeyaan buu yiri waayo waqtiga aan geliyaa dee badan oo maanta waan shaqeynayaa oo gaadhi ma dul saaranahay kasaan ka fahmay inuu gaadhiga ku shaqeysan jiray laga yaabo inay taksi ahayd amba wax kale laakiin wuxuu gaadhiga ma dul saaranahay lacagtay soo gasho way badan tahay horena waa u baxdaa oo dee yani wax sidii dabaysho qaado kala weeyaan kadib wuxuu yiri guriga dhexdiisii waxaan waxba ahayn markay xaaska isku qabsadaan wixii baa weynaanaya wax yar oo waxba ahayn ba isku bedelayo yani conflict aan joogsanayno isdaba jiidanayo maanta dhan dad haysto iyo muran ku jira ciyaalkii ma maqlayaan waa isku buuqay hurdadii baa igu yar waan hurdaa haddana ma hurdo inta maskaxdeedu way shaqeynaysaa waxuma ku riyoonay waxuma ka fikiraya tabcaan baan ahay marka wuxuu yiri taasna waxay sababtay buu yiri inaan ka bixi waayo daal ka bixi waayo in xumadii hayso hargab igu dhacoon anigoo saas kaga daala dhacaya in haddana saaranahay buu gaarigi marka maxaad igu talin lahayd sidii buu ugu waramay wadaadkii meesha joogay wadaadkii dhowr su'aalood buu weydiiyay wuxuu yiri mararka qaarkood masaajidka waan kugu arkaa laakiin salaada si soo tiiniga waran halkeed ku tukataa masjidka ku tukataa markaasuu yiri waa run halkan dhowr jeer waan ku tukadaa maxay tahay hadba meesha aan ka soo gaaro marka uu kala cadeyn masjid ku tukado inuu guriga ku tukado kadib wuxuu weydiiyay salaada subax wuxuu ku yiri salaada subax sideed isku tihiin wuxuu ku yiri mararka qaarkood salaada subax waan soo kacaa laakiin badi way dhaaftaa buu waan soo celiyaa salaadaha kale se hadaan ka gaaro jamca waan gaaraa hadii kalena waan dee waqtigeega waan intuuna salaada dee waqtigiisa dhaafin waan tukadaa kadib wuxuu ku yiri hadana guriga quraan ba ku akhridaa wuxuu yiri markasta waan maqanahay buu yiri marka kaliya nimaado oo markaan yar cunteynay yar nasanayo ciyaalku dugsi bay dhigtaan ayagu dugsi baan u diraa buu yiri kulli way ku akhriyaan xaajidaadu ma akhrisaa wuxuu yiri way akhrisataa laakiin ma hubo hadana aduu ma akhrisaa baa lagu yiri wuxuu yiri may anigu guriga mararka qaarkood mar mooyee kuma akhriyo quraan miskiidkan ku akhristaa wuxuu ku yiri ciyaalkiina ma is aragtiin awlaadaada ma aragtaa wuxuu yiri haa weekendiyada waan is aragnaa aabba iska waran hayay quraanka xageed maraysaa waa yar oo reystaa laakiin waqti ma wada qaadatin wuxuu yiri may markay iskoolka ku maqan yihiin anigu xilligan guriga imaado yar cunteeyo yar nasto markay joogaan guriga soo rawaxana anoo suuqan joogaa buu waan shaqeynayaa hadaba intii inanku dhibaatada ka sheegto oo dhan su'aal buu ka weydiiyay wadaadku markuu su'aashii ka weydiiyay haddana imika jawaab buu siiyay inankii wuxuu ku yiri salaanta shanta waqti waa inaad wax weeyaan ka soo baxdo waayo waxa waa waajib weyn oo ku saaran weeyaan buu yiri salaada ka soo bax mid kale wuxuu waxaad xooga saartaa salaatul fajrku waa albaabka dhan oo arsaaqadu ka soo galayso buu ku yiri marka meesha dhanayd albaabka dhanada arsaaqadu ka soo galaysay hadaad xidho oo xilliga adoon sidaad furto dee wax weeyaan ma noqonayso xilligii loogu tala galay fajrka wayna tukatid waayo fajrku buu yiri salaada fajr waa albaabka arsaaqadu ka soo galo waa jawaabtu siiyay kadib wuxuu ku yiri in igara lahada waxaan ka booday waalidkiisana uu su'aalo wuxuu ku yiri hooyaaba ma ku noolyihiin haa way noolyihiin ma ka warhaysaa telefoon ma kula hadlaa mar waanu tagaa buu ku yiri hadaan soo noqdo jawaabtu wadaadku bixinayo hadana wuxuu weydiiyay guriga quraanka lagu akhriyo buu yiri shaydaanku uu ka eriyada malaa'igtana guriga u noqotaa company way joogtaa
kama baxdo halkaasay joogaan shadaadintuna way ka cararaan buu yiri marka haddii ciyaalku akhriyaan iyo haddii xaajadooda akhrisiyo haddii kaleba adiga ayaa lagaaga baahanya buu yiri inaad qaybtaadii la timaado adiguna qur-aanka akhriso ciyaalkana waxay kugu arkaan way sameynayaan xaaskaagu waxay kugu aragto way sameynaysaa buu yiri marka adigu dadkii sii adaa ka masuula reerka mukura adiga ayaa ka masuula gurigan marka adigu waa inaad dadkii siin karto buu yiri niyad ay wixii ku sameeyaan tusaaluhu waa adigu in lagu heli karo buu yiri waqti aad qur-aankii guriga ku akhrinayso halka aragana wuxuu sheegay awlaadan buu yiri maxay hadba intii aad u dhowdahay kuu soo dhawaanayaan marka inay waqtiyada ay joogaan aad la sheekaysato aad la kaftanto aad waraysato ayay kugu jeclaanayaan buu yiri de gurigii laga helo hatimaadid gurigii imo ciyaalkaaga la sheekayso waqti si la baxbax la kaftan saasoo ku yiri arinta kale ee halka caafimaadka ku saabsaneedna waa kanoon waxaan iga iloobaheed waalidku ka wareystay wuxuu ku yiri waalidkaaga wanaaji oo ihsaan samee u tag maxay ka farxi oo maxay hadday nool yihiin waa alxamdulilah ka warhay haddayna nooleyna dee wax weeye qaraabadii intii kala xiriiri sadaqad u bixi waalidkii ka warhay waxyaalaha muhiimkii ayaad ka tallaabsatay buu ku yiri markaa sidaa samee arinta kale ee halka in arsaaqadana wuxuu ku sheegay fajarku waa albaabku arsaaqada ka soo galiya buu yiri arsaaqadu ilaahay halkaas ka soo gelinaya wuxuu arsaaqadaasina inkastoo ku soo gasha wax walba ku soo gala wuxuu ilaahay ku barakeenaya oo ma aragtay intaad haysato oo lagu waasicinaya markaad xogaa yar ka bixiso wuxuu ku yiri lacagta xogaa ka qanjiiray oo si agoonta si masaakiinta fuqarada si ehelkaagii qaraabadaada si halkaas wuxuu yiri waxa ku soo gala ma hayradaan baa weynaado lagu barakeenaya oo lagu deeqsinaya qalbigaaga la deeqsinaya buu indhahaaga la deeqsinaya halka soo qodob inta soo qodob u soo tiriyay asxaabi wuxuu ka hadlay wadaadku inta arrimoodu soo sheegtay inuu salaada inuu ku dadaalo khaasatan xoog la saaro fajrka salaatul fajrka waa halkii salaadaha kale dhan ka saxmayaan waa salaatul fajrkood hagaajiso oo waqtigeega la tukado waa halku albaabkii arsaaqadu ay ka soo galayso arsaaqaduna huna maalun ma arsaaqadu waa caafimaadka arsaaqadu waxa weeyaan awlaad lagu siiyay arsaaqadu waa farxadda arsaaqadu waa wax walba oo naftaada gelinaya in farxad gelinaya naftaada happiness gelinaya waxaas oo dhan ba arsaaq leedahay arsaaqadu waxa weeyaan in guriga aad gasho oo degan arsaaqadu waxa weeyaan hurdada raaxada seexanayso arsaaqadu waa shaqada wanaagsan aad haysato wax kasta oo positive haysato waa arsaaqad weeyaan marka albaabka dhan waa arsaaqadu ka soo galay waa salaatul fajrka buu wadaadku arinta labaad uu sheegay waxa weeyaan in guriga lagu akhriyo quraanka si uu shaydaanku ku soo galin meel uu shaydaan ku soo galo waa dhibaato weeyaan wax kasto kaaga dhigaya ibir ilaahay ku barakeeyay ka shaydaanka si loo eriyo malaa'igtuna ay halka kugu timaado ay ku ducayso intaad akhrisanayso quraanka ay ku ducayso intaad reerkaaga la faraxsantahay ay ku ducayso wax walba reerkaaga u sameynayso waa ku cibaado marka quraanka in guriga lagu akhriyo isagana haddii deganaansho raaxa guriga la doonay in quraanka lagu dhex akhriyo oo lagu dhex dhigeysto lagu dhex akhriyo arinta saddexaad ee xagga awlaadda ku dhiga adkaatay wuxuu ku sheegay inuu waalidku aabuhu ama hooyadu ay ilmaha siiso waqti ilmaha iskuulna ha u dirin ilmaha dibadda ku ciyaarna oran isagii waa inaad la sheekaysan karto inaad dhageysan karto ilmaha wareyso ilmaha dhageyso ilmuhu maanta haddaad dhageysato haddaad fariisato uu ku sheekeynaya wareyso ilmaha la saaxiib in meel la tagtag in wax soo tustus waxyaalaha wanaagsan ma hayr soo bar haddaad ilmahaaga adigu wax tusi weydo wanaagsan wax fiican tusi weydo walaalayaal dad kale ayaa wax walba ku baray hadhow ka ilmahaaga si waqti okay waa sidoo sheekhu iyo wadaadku waanu sidoo inanka kula taliyay inuu waqti siiyo ilmihiisa in arinta kale halka caafimaadka barakada waxyaalaha waalidka ehelka qaraabada in laga warhayo imriga ayaa lagu barakeeyaa walaalayaal caafimaadka ayaa lagu barakeeyaa walaalayaal waxa kale oo iloobay oo wadaadku ku daray wuxuu yiri arrimaha aakhiro haddaad u dadaasho arrimaha adduunka fududeeya
arrimaha aakhiro oo u dadaasho arrimaha adduunka fududeeya marka waqtigeena biidni illah walaalayaal meelaha muhiimka horta aynu gelino si aynu markaynu meelaha muhiimka gelino aynu ugu helno waxyaalaha aynu rabno insha allah si nafisa loogu noolaado si degan loogu noolaado nolosha looga faa'iidaysto inta ay kooban loo noolyahay marka walaalayaal wax walba waa la gaari karaa alxamdulilah dad caafimaad hayso haddaad niyad hayso wax kasta waa la gaari karaa waxa weeyaan meelahaynu wax ka raadinayno iyo inaga yar khaldan horta muhiimadda aynu u soo noqono sababta aynu halkan u joogno waan wada ognahay muhiimadda markaynu u soo noqono insha allah wixii ay niyaddu iyo naftu doonayso oo khayrna ku jiro biidni illah waynu wada helaynaa waa idin salaamayaa daraar wanaagsan dhammaantiin insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu